Kusoo dhawaada bandhigan Skyward-ka oo loogu talagalay waalidiinta iyo mas'uuliyiinta carruurta. Skyward waa application ay isticmaalaan Rochester Public School si ay warbixin ardaydooda ku saabsan ugu gaarsiiyaan waalidiinta iyo ardaydaas mas'uuliyiintooda. Kuna la socodsiiyaan waxyaalaha ka socda ku saabsan ardaydooda. Waxa kale ee caawisaa waalidiinta inay ogaadaan arrimaha kala duwan oo muhiimka ah oo iskuulka carruurtooda ka socda ama ka dhaca. waxyaalo badan baad kala kulmi kartaa ama ka heli kartaan Family Access-ka Skyward-ka sida hadda aad uga jeedaan oo kale sabuuradaaneeto. waxyaalaha kala duwan oo laga heli karo waxaa ka mid ah messaging board meel dhahay oo fariimo la iskugu dhaafo ama fariimaha muhiimka lagu soo qoro. waxaa kaloo ka heli kartaan attendance-ka, xaadirka, grade board-ki oo ciyaalka buundooyinka ardayda calendar-ka oo maalmahaas waxyaalaha socdo ku qoran tahay. iyo waxaad kaloo ka heli kartaa Skyward-ka inaad cunugaaga xaadirkiisa hataa aad ku sheegto maanta uu maqan yahay oo kale aad dhihi karto kuwa ka mid ah information-ka ama magacii ardayda, conferences-ka waalidiinta iyo macallimiinta kulankoodii aad iska qori karto, buundooyinka imtixaamada ka keeneen, report card-koodii iyo schedule-ka maalintaasay leeyihiin iyo waxyaalo kaloo fara badan. u gashid Skyward-ka waxaad tegaysaa Rochester Public School website-kiisa. waxaa ku dhufanaysaa maraayadda soo dhaweysada la dhahayo. markaas ka bacdi waxaa ku dhufanaysaa Skyward. taa ku geyn doonto bogga aad ka gali page-ka waxaad suubin kartaa meel kasta ka joogtid. hoosaa u dejinaysaa ilaa hoos tagto. markaasaa ku arki kartaa linkiga Skyward-ka. linkigaasaana ka isticmaali kartaa saa u tagto Skyward-ka login page-kiisa. website-ka ku jirna waxaan rabaa inaan tuso meesha familiga tegaysaa. hadhowt waxaa ku arkaysaa Skyward Toolkit meesha la leeyahay oo kuu sheegaysa sida loo isticmaalo Skyward-ka haddii aad ku dhufatid linkigaas waxaad arkaysaa fiidiyoyo kala duwan oo ku faahfaahinaya ama ku baraya Skyward-ka sida loo isticmaalo. midda kale rabo inaan tuso waxaa weeyaan haddii aad wax dhiba kala kulantaan ama idinku adkaato inaad login-ka aad geli weydaan Skyward aad geli weydaan waxaad email usoo diri kartiin oo su-aale caawitaankaba skywardsupport@rochesterschools.org. marka hadda waxaan kusoo noqonay page-kii lagu galayay ama lagu login gareynayay. haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad login gareynayso waxaad ku dhufataa waan ilaaway password-kayga. markaas waxaad ku dhufataa gelisaa email-kaaga address-kaaga hadhowna dir submit deh. waxaa loo baahan yahay inaad email oo systemka kugu jira aad leedahay waa muhiim. pop-up kuu soo baxay pop-up oo ku leh email aa lagu soo dirayaa. emailka aad password-ka ku bedelan kartid baa lagu soo dirayaa. haddii aadan email systemka kugu jirin waa inaad wacdaa xafiiska iskuulka ardaygaaga dhigto. emailka saanay u eg tahay waxay ku siin doontaa login-ka magacii aad ku geli lahayd iyo link aad ku dhufan doonto si aad password cusub uga soobsatid. markaad login garaysid screen-ka saan uu ogyahay. haddii aad hal student ka badan aalada arday ka badan dhowr arday ah meesha kore aad ku dhufanaysaa oo magacyo kala duwan say kugu soo baxaan. kugu dhiirigelinaya inaad ku bilaawdid oo tagtid my account meeshay ku qoran tahay. halkaas waxaad ka bedelan kartaa login-kaaga si aad uga dhigatid mid micno adig kuu leh. waxaa ku type garanaysaa wax adiga micno kuu leh. haddana waxaa gelinay password-kii ee hadda soo samaysatay markaasaa save ku dhufanaysaa. haddaa rabtid password-kaaga halkaanaad ka bedelan kartaa. telephone number-kaaga iyo information kaloo kala duwanna waad ka bedelan kartaa meeshaas. address-ka waxaa weeyaan inaad ka bedeshid registration and record meesha diiwaangelinka inaad kasoo bedeshid. hadda waxaan fiirinaynaa sida aad telefonkaaga uga soo geli kartid. waxaad telefonka aad kasoo download garaysanaysaa Skyward mobile app la dhahay oo telefonka lagu soo shubtaad kasoo shubanaysaa. markaas waxaad ku dhufanaysaa calaamada isku tilaabta ah ama ku darta ah baad ku dhufanaysaa saad account u subsatid. sida ugu sahlan waxaa waaye inaad postal code-ka midkaa ku dhufatid oo hadhowna zip code-ka xaafadaada aad gelisid sida 55951 oo kale ah oo Rochester Public School saasuu kugu soo baxaya. 5355 choice-ka ugu koobaad. kaas waxaad ku gelaysaa username-kii aad hadda subsatay ama midka aan kugu soo dirnay email-ka iyo password.
marka labadaas geliso waxaa ku dhufanaysaa geedda yar oo dhinaca kore oo gacanta midigta kaa xigta ah markaasna waad save garaynaysaa. Taleefankaaga wuxuu ku leeyahay 4 number oo sir ah gasho si mar kasta aad u soo noqoto aadan u gelinin magacii iyo passwordka aad u gelinin oo numberadaas bas u gelisid. Ka systemka gasho sidii hore uu ka duwanaan doonaa laakiin 3 xariiqin oo iskor yaala baad ku dhufanaysaa markaas menuyogii kala duwanaa iyo meelaha aad u kala baahan tahay rabtid inaad ka tagto buu kuu soo saarayaa. ka aadaysaa meesha rabtid hadday tahay sidii xaadirka oo kale ama attendance-ka ama discipline-ka cunuga rabsho kale iyo baxarada meesha lagu soo qoro dambiga. Ku dhufatid icon-ka yar oo calaa xaashida airplane-ka ah oo kale ah diyaaradda oo afka guduudan leh adi wax warbixin kale waa faahfaahin mobile app-ka saa u isticmaalka dhida ku tusaya ku baraya. Waa screen ku tusaya waxyaabaha kala duwan oo mobile app-ka loo isticmaalo ama uu egyahay marka mid waa la yara qafiifiyay mobile app-ka Skyward-kii oo yara qafsiisan waaye waxyaalaha badankood aad rabtid waa ka helaysaa laakiin sidii kii website-ka kale uma faahfaahsana. Waa kanaana midka computer-ka suu ugu egyahay si aad iskugu barbar dhigtid labada screen si ay u kala duwan yihiin. Dib aan u noqono ereyooyin kala duwan marka haddaan ku noqono aan tagna home-ka meesha guriga waa meeshii centerka noqonayno. Message-yada halkaan ay ku qornaan doonaan kan mid tusaale ah weeyaan marka waxba kuma qorna. Mar labaad waa kala dooran kadhaa ardaydaada cunug ka badan haysatid. Haddaa arday cusub ku joogana waxaa ku dhufanaysaa new student markaasaa enrollment-ka ku dhufanaysaa. Had walbana suubiya online verification oo information-ka baa la dib loo fiiriyaa ardayga. Dhowr tilaabaad mari doontaa aad ku saxaysid waxa ku qoran meesha ardayga ku saabsan inay saxsan yihiin. Standardka waa tan asaan u eg tahay waa buugga oo gradeska oo lagu soo qoraayo natiijada cunugaaga fasal walba. Kan waa mid oo ereyadiisa xoogaa ay sii faahfaahsan tahay caruurta dugsiga sare ah. Kanna waa attendance-kii weeye. Hadda ardaygan dhowr maalmo oo maqan yahay koodhir kala duwan loogu qoray maalmihii date taariikhdii ku taala cunuga oo maqnaa. Midaas meeshaas kale waxaa ku dhufan kadhaa absence request site-kan ama iskuulkan wuxuu ku ogolaanayaa inaad online ka dhahdid cunugayga maanta ma imaanayo iskuul sababtaas. Comment ku qorto waa muhiim soo fadlan haddii uu ardaygaaga jiran yahay oo kale ku qor waxyaalaha uu dareemayo symptoms-kooda. Maalintii dhan maqlaaneen boxkaas aan sheeg garee marka inta saacadood ay maqlaanayaan ku qor. Xilligana save garee requestigana save garee. Systemka marka wuxuu ka yahay pending uu ka yahay weli lama wada aqbalin waa iskuulka inuu helaa warkaas. Email baa heli doontaa marka information-kan la diro. Email kalena waxaad helaysaa markuu iskuul xafiiska iskuulka uu helo uu warkaanayta diiwaan geliyo. Student information-ka waa ka boodaya marka waxaan ku tusayaa schedule-kan ku tusayaa. Schedule-ka xoogaa way fara badan tahay ardayda galaaska ardayda dugsiga labaad oo sare weeyaan marka waa arkaysaa fasalladooda oo kala duwanaayo dhan iyo macallimiintoodii halkaan waa uga jeedaan. Kala duwanaa jiro soo meel kastoo blue ah ku dhufan kadib ku dhufo saad u aragtid waxyaalaha ka soo baxay ama waxa kugu qoran. Qayb kale soo baxaysana waa discipline-ka ardaygan waxa uguma qorna waa qaybta markuu ardayga dambi gala ama xafiiska la geeyo meesha lagu qoro. Waxaa noogu xigta imtixaamadii iyo buundooyinka laga keenay iyo conferences-kii waalidiinta iyo macallimiinta kolankooda. Xilliga conferences-ka markii la gaaro hadduu iskuulkiina uu dhaho online ka dalbada meesha conferences-ka ku qoro dhufanaysaa hadhow waqtiga iyo maalinta aad halkaan ka dooranaysaa oo balanta ka dhiganaysaa ama macallinka la kulmi lahayd. Dhufanaysaa time-ka marka waxaa arkaysaa xilliyada kala duwan markaasaa midkaa rabta kala baxaysa hadhowna asagoo meesha kugu save garaysana arkay markaa kusoo noqotid. Fara badanaa ereyadan isticmaalaya si conference-yadooda ugu schedule garaystaan. area kalena waxaa weeyaan report card-ka balse maadaama ardaygan arday mu'allifa yahay wax report card kuma jiro laakiin screen kara in ka tusayaa boogi oo grade-ka ku qornaayo report card-ka ahaa. Maantana marka soo eg tahay waxaa ku jiri doono imtixaamadii kala duwanaa natiijadoodii waxbarashada gaarka special airka 504 plan hadday tahay taariikhi ahaan dhan imtixaamadu soo qaato ku jiraan marka midkaa rabta hadda ku dhufan kadhaa oo furi kadhaa fiirin kadhaa. midda kale waxaa jirta qayb caafimaadka ku saabsan oo waxyaalihii health caafimaadka dhan ku qoran yihiin ee waraaqihiina ku jiraan iyo cunuga caafimaadkiisa xataa hadday wax jiraan ka arkaysid bilmatan hadda ardaygaan oo kale tallaaladii ka maqan tallaalo ma haysto.
midda kale xagga kore waxaad u taabatid waxaa arkaysaa district links oo kale sida school website-kii oo kale meeshii oo free and reduce calaanjka cuntada oo kale ama district wide ama xataa tutorialkii linkyo kala duwana xag ka helay sidoo kale hadda waxaa sky alert waxa lahaay oo district uu warfaafin ama warbixin degdeg oo kale kugu soo gaarsiinayo ama telefoon ha ahaato ama text message ha ahaato ama telefoonka app-ka kaaga alert kaaga soo booda ha ahaado meeshaana imaan kartaa waxaad subin ka dhaa nambaro cusub ama waxyaalo kale ama siyaabo kala duwan oo kale ku update gareysana ku darsanaysa sidaa rabtid in lagula soo xiriiro warkaas lagu soo gaarsiin adaa kala bixaysid kee emergency callka loo dirayaa telefonkee attendance callka loo dirayaa telefonkee baa loo dirayaa maxaa ku dhaa weatherka iyo cimilada haddii isbedesho iyo waxyaalahaas dooran ka dhaa telefonada si u kala aadayan midda kale waxaa ku dari ka dhaa telefono nambaro kale haddii qof qoyskaa kamid a aa jirto aa rabto in waxyaalaha emergencyga ah loola socodsiiyo ardayga ku saabsan oo telefoonka in loo diro ama message loo qoro u baahan tahay nambaro kala hoosta meeshaas bannaan ku qori ka dhaa si warkaas loo gaarsiiyo ayakana marka waa la wici doonaa waa loo diri doonaa midda kalena waxaad emailo kala ku dari ka dhaa ku qori ka dhaa marka laakiin waxay noqonaysaa emailkaas waxyaalaha rabti in loo diro iyo emergencyga nooca rabti in loo diro waa inaad ku dhufataa midda kale waxaa haysanaa ereyada oo text message-ka taas waa mid aan hadda aad u isticmaalin laakiin aan rajeynayno inaan mustaqbalka taas aad u isticmaalno mar labaad waxaan rabay inaan soo bandhigo screenkii haystay haddii aad wax kugu adkaadaan ama wax dhiba la kulantid yaa u email garaynaysaa telephone numberka oo loo wici kartidna waa kana waa 573285555 waa deskiga la iska caawiyay asagaa soo wici ka dhaa meesha saxsan ama qofka saxdaana asagaa kuu gudbin doono